Asalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada channelka Cadnaan Yaasiin warbixinta waxaynu ku eegi doonaa xayawaanada ugu la yaabka badan ee adduunka qaybteedii saddexaad inta aynu gelin muuqaalkeena daawada waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe gareysid oo aad nagu soo biirtid channelkan waxaad kala soconi doontaan warbixino iyo dhacdooyin cajiib ah oo adduunka ka socda waxaanu si maalinle ah u soo gelin doonaa muuqaalo tayo leh oo cajiib ah. السلام عليكم daawadayaal kusoo dhawaada mar kale channelkan Cadnaan Yaasiin xayawaanka koobaad aynu ku eegi doono qaybteena saddexaad waxa weeye gorgorka loo yaqaano harbi haddaba waxa uu ka mid yahay xayawaanada ugu la yaabka badan ee adduunka waxaanu u eegayaa shimbirka loo yaqaano baqbaqaaga kaas oo canjila hadalada dadka waxa uu shimbirkani amba gorgorkani uu leeyahay dharar 2 mitir ah culeyskiisuna waxa uu gaadhaa 9 garaam waxa gorgorkan loo yaqaano harbi uu ku nool yahay keymaha rooban ee dalka Mareykanka gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta dalkaas waxa uu gorgorkani u gaarsadaa naasleyda khaas ahaan xayawaanada loo yaqaano daanyeerada xayawaankani waxa uu ka mid yahay xayawaanada loo badinayo inay waayaan deegaankooda waxaana la ka helaa imka meel qura meeshaas oo ah beer ku taala dalka Mareykanka oo loo yaqaano Balesi beertaas oo ah hoy xayawaano badan gorgorkani waxa uu ka mid yahay xayawaanada guursada hal mar waxaanu si siman u daryeelaa ukuntiisa ama beedkiisa waxaanu ka mid yahay xayawaanada sida naxariista leh u daryeela dhashiisa xayawaanka labaad ee aynu ku eegi doono qaybteena saddexaadna waxa weeye daawada xayawaanka loo yaqaano qawandi ama ogtamandi xayawaanka la yaabka leh waxa uu ka tirsan yahay nooca loo yaqaano raakunka waxaana lagu gartaa xayawaankan sankiisa dheer iyo dibkiisa dhogorta badan xayawaankan waxa uu ka mid yahay xayawaanada omnivoriska ah kuwaas oo cuna hilibka iyo dhirta xayawaankan qawandi waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka waxaanu xayawaankani ka mid yahay xayawaanada u soo socda raxanta waxayna u socdaan tiro ah 15 iyo 20 waxa inta badan raxantani u badan yihiin dhadig iyo dhasheedii xagga uu labka xayawaankani uu yahay gooni socod xayawaanka saddexaad aynu ku eegi doono qaybteena saddexaadna waxa weeye daawade xayawaanka loo yaqaano welwelka qoorta madow xayawaanka loo yaqaano welwelka qoorta madow waa shimbir waxaana loo yaqaanaa Jabiruus Stroke shimbirkani waxa uu ku nool yahay dalka Mareykanka shimbirkani waxa uu leeyahay af dheer oo madow dhererka afkiisuna waxa uu gaadhaa 35 sentimitir waxaanu leeyahay jaleeco madow oo dadku ka baqaan eegitaankiisa shimbirkan dhererkiisu wuxuu gaadhaa 1.5 mitir amba 1.5 mitir shimbirkan waxa uu ka mid yahay xayawaanada hilibka cunka ah waxaanu cunaa naasleyda iyo kalluunka xayawaanka afraad uguna dambeeya qaybteena saddexaad waxa weeye daawade xayawaanka loo yaqaano shaydaanka badda xayawaanka loo yaqaano axolotl ama macnihiisu yahay shaydaanka badda waxa uu ka mid yahay xayawaanada dhererkoodu gaadho nus mitir xayawaankan ayaa waxa uu ku dhuntaa maalintii dhirta badda deegaanka dhabta ah ee uu xayawaankani ku nool yahayna waa meel u dhow dalka Mexico xayawaankani waxa uu ka mid yahay xayawaanada ku noolaan kara bariga waxaanu u soo baxaa bariga mararka qaar si uu qaato hawo fresh ah amba hawo nadiif ah daawada haddaba hadday tahay markii kugu horeysay aad channelka soo booqato waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe gareysid muuqaalkana like gareysid share gareysid warbixinta kugu la yaabka badan amba xayawaanka kugu la yaabka badan ee aad ka daawatay warbixintana aad ku soo reebtid commentiga